Go. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته داود الكل ونكسن xubinteen waxaynu kusoo qaadanaynaa ciidanka Eritrea lagu eedeeyay inay bilowga baahsan ka geysteen gobolka Tigreega hogaamiyaha jabhadda TPLF Debretsion Gebremichael oo ay dowladda Itoobiya baadagoobayso ayaa sheegay in ciidanka Eritrea ee gacanta siinaya kuwa federaalka Itoobiya ay bilowga wadareed ka geysanayaan magaalooyinka waaweyn ee gobolka Tigreega ee waqooyiga dalkaasi fariin qoraal SMS oo u diray wakaaladda wararka Reuters ayuu ku sheegay in dibadbaxyo ka dhaceen caasimadda gobolka Tigreega ee Maqale oo hoy ah 500 kun oo qof waxa uu tilmaamay in ciidanka Eritrea ee la safan militariga federaalka ay bilowga ka wadaan magaalooyinka Aksum, Adwa, Maqale iyo kuwa kale Debretsion Gebremichael oo kuntiisada jira ma soo bandhigay cadeymo muujinaya bilaqada ama joogitaanka ciidanka Eritrea ee gudaha gobolka Tigreega sidoo kale dowladda Eritrea iyo Itoobiya waxay beeniyeen eedeymahaasi dhinaca kale Debretsion Gebremichael oo wareysi kale siiyay barnaamijka Ion Africa ee telefishinka France 24 waxa uu tilmaamay in 16 qayb ama division oo ka tirsan ciidanka Eritrea ka barbar dagaalamayaan kuwa federaalka kuwaas oo ku eedeeyay inay bilowga baahsan u geysteen ama ka geysteen gobolkaasi wuxuu fursad ku fiiqay in ay bilowgeysteen qalabkii yiilay shaybaar caafimaad kombiyuutaro iyo warshad lagu farsamay daawooyinka oo ku taala gobolka Tigreega xubinteena kale waxaynu kusoo qaadanaynaa askarigii soo riday diyaaradda VX-23 oo lasoo bandhigay iyo stuudio ay lahaayeen telefishinka Tigreega oo ay dowladda Itoobiya la wareegtay waxaa markii ugu horreysay lasoo bandhigay muuqaalka askariga ka tirsanaa TPLF ee la sheegay in uu gantaal kusoo riday diyaarad dagaal oo ciidanka cirka Itoobiya ay lahaayeen taasi nooceedu ahaa MiG-23 askariga muuqaalka lasoo bandhigay ayaa ka sheekayay qaabka ay u suurto gashay inuu diyaaraddaasi soo rido isagoo sheegay inuu adeegsaday gantaalka lidka diyaaradaha garabka laga tuuro waxaana muuqaalka lagu soo bandhigay isagoo mar garabka ku haysta gantaalka dhinaca kale militariga dalka Itoobiya waxay la wareegeen stuudio telefishin oo ay Tigreega lahaayeen baahinta dowladda Itoobiya ayaa soo bandhigtay muuqaalka stuudiyaha ay la wareegeen iyo qaybta farsamada iyo qaybta wararka ee telefishinka laga baahiyo waxayna tan muujinaysaa in dowladda Itoobiya ay ku guuleystay inay gacanta ka dhigto mid ka mid ah stuudiyaasha ay telefishinka Tigreega ay ku lahaayeen gobolka Tigreega xubinteena kale waxaynu kusoo qaadanaynaa dagaalamayaasha jabhadda TPLF oo soo bandhigay gantaalo casri ah inkastoo ay dowladda Itoobiya hore u sheegtay in ay gacanta ku dhigeen inta badan hubka ay lahaayeen dagaalamayaasha TPLF ayaa haddana waxaa soo baxaya inay weli dagaalamayaashaas ay haystaan madaafiic casri ah oo ay ka mid tahay kuwa loo yaqaano Hawzerka muuqaal soo bandhigay ayaa laga arkayay iyagoo u adeegsanaya duqeyna la beegsanayaan goobaha ciidanka Itoobiya ka joogaan gobolkaasi xaaladan ayaa u muuqata in dagaalkii fari si ka qodneen oo ay dagaalamayaashu ay bilaabeen dagaal jabhadayna isla markaana ay marba adeegsanayaan hub noocyadiisa kala duwan ah